25 sano ka hor markii lagaga dhawaaqay shirkii Burco ee 19 goonisitaaga Jamhuuriyadda Somaliland. Shirka Burco kuma ekeeno kaliya goonisitaaga balse wuxuu xambaarsanaa arrimo muhiim ah oo waqtigaas ay kamid ahayd heshiisiinta iyo walaalaynta bilaha wadadega Somaliland iyo in la soo dhiso dawladda ay cid walba ka muuqato. khilaafyo badan oo u dhaxeeyay xoogagii SNM ayaa haddana waxa soo cusboonaaday dagaaladii sokeeye oo ka qarxay magaalada Berbera, halkaasna uu dhaawac weyn soo gaadhay xasiloonidii koobnayd ee lagu soo unkay shirkii Burco. shirar badan iyo kulano loogu dadaalayay baqtiinta culaadaha sokeeye ee bilaabmay ayaa waxa ka dhashay shirkii Sheekhay Tawfiiq. waxa xigay shirkii Boorame 1993 oo ahaa mid lagu soo dhisay haykal dawladeed oo dhammaystiran isla markaana lagu heshiisiyay beelaha Somaliland. dhacdooyin waaweyn oo dalka ka dhacay oo lagu xoojinayo dawladnimadii lagu soo dhisay Boorama oo ay kamid ahayd hubka dhigistii. dhacdadaasi waxa la oran karaa watii ugu muhiimsaneed ee Somaliland ku dhaqaaqdo waqtiyadii hubku gacanta ugu jiray dadweynaha. labadii 2001 ayaa dalka waxa ka dhacay isbedel siyaasadeed oo ah nidaamka xisbiyada badan, waxaana laga guuray nidaamkii beelaha oo guulo badan lagu soo gaadhay. nidaamkan dimuqraadiyadeed oo markii hore laga cabsi qabay ayaa ka hirgalay dalka oo dhan, waxaana qabsoomay 5 doorasho ay ka mid tahay doorashada madaxtooyada oo tiraba 2 jeer ay si nabad ah u qabsoontay. 25 sano ayuu dalkani jirsaday oo u dhisan yahay, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ka hor yimaada geedi socodka dimuqraadiyadeed ee dalka oo marar badan la kulma murano siyaasadeed oo culus. sidoo kale waxaa jira abaaro, sicir barar iyo shaqo la'aan baahsan oo dhalinyaradii soo food saartay. 25 sano maxaa khaldanaa oo u baahan in la saxo maanta? jidka la soo maray ma loo baahan yahay in dhinac kale loo leexiyo? ma loo baahan yahay in shuruucda dalka dib loo eego? qaabka loo raadiyo ictiraafka Somaliland ma yahay mid toosan mise waxa loo baahan yahay in si kale loo dhigo?